بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. البعض شرفت له وسلامتهين إله والشكر له الحمد لله نبدأ سوق عليه فسحي كذب كلونك أن عادي هاي الدهرات برلمان كالفراي كسكو كلن عادي ما أنت ربنا إن برلمان كبركين نوفرمو مركا xildhibaanada sharafta leh maanta waxaan rajaynaynay maadaama fasaxii markii uu dhamaaday hata 20 maalmood aan ku darsanay waxaan falaynay in kooramka maartay shaki la'aan uu buuxsamo waa dhawaaday waqti badan aan ku darnay laakiin waa buuxsami waayay 137 xildhibaan ayaa soo haadartay waxaa ka maqan 2 xildhibaan marka sidaa daraadeed waxaan rabaa walaalayaal suga xildhibaanada sharafta leh maanta runtii waxaan aad u rabnay inuu noo furmo arrimo muhiim ah ayaa noo yaalay shuruucda kasokow arrimo kale aan rabnay baa jira maanta inaan ka hadalno oo xildhibaanada naftarkooda noo soo gudbiyeen waa jiray noo taalay laakiin fadhigii maalintii koowaad ma rabno inaan maaragtay kooramkan buuxin baa saas la yeelay iyo waxaas inay timaado ma rabno walaalayaal maanta xilligii soonkan waa soo dhow yahay waxaan rabnay baarlamaanka inuu maanta maaragtay qajindiyaashii khamiistii la diyaariyey inaan gudagalno ayaa jirtay mooshin xildhibaano noo keenan waa jirtay ayada inaan ku darnaan rabnay asigana marka maadaama kooramkii uu suurtagali waayey ma suuroobayso laakiin waxaan rabaa fariin cad inaan u diro xildhibaanada Soomaaliyeed oo sabab u noqday inuu shirka furmi waayo oo kooramkeeni maartay 139 xildhibaan inaan weyno sababay waxaan leeyahay walaalayaal waajibaadkeen dastuuriga aan gudano wixilno ummadda Soomaaliyeed nagu aamintay aan gudano xildhibaanada maqanow sabtiga inaan kooram waayno mar labaad ceebay nagu tahay waan mashaqaystayaalnimo ay noqonaysaa waajibaadka saaran xildhibaanadu waxaan rabnaa inay yimaadaan xildhibaanada dibadaha ku maqan dalku ku maqan qofka aan shaqo ku maqanayn caafimaad ku maqanayn inay yimaadaan ayaan maaragtay ku dhiirigelinaynaa yaan ka codsanaynaa waajibaadkeena gudta maaragtay dadka fasax la'aanta maqan oo iska maqan maaragtay muddo haddana maanta sababay in maaragtay baarlamaanka noo furmi waayo aad iyo aad aan ugu xunnahay marka walaalayaal waxaan leenahay hal yimaado arrintaa maanta waa baaq kadib waxaan bilaabi doonaa in maaragtay la tiriyo xildhibaanada in la tiriyo magacooda la yeero yaan bilaabi doonaa magacyadoodii in la meeriyo xildhibaan hadalka aniga wata markii gudoomiyaha hadlaayo xildhibaanka inuu aamuso ayaa waajib ah qaylo looma baahana walaalayaal aniga hadalka wata gudoomiyihii golahan ahay maxaa igu daba qaylina walaal sharcigan kuma ogola anigoo hadlaayo ma hadli karto marka walaalayaal markuu gudoomiyaha hadlaayo xildhibaanka waxaa waajib ku ah inuu dhegaysto aamuso maxay ugu dabqayline marka walaalayaal maanta aadaan ugu xumahay xildhibaanada walaalaha oo maqan waxaan leeyahay hal yimaado sabtaga laga bilaabo waxaan samayn doonaa dadka maqan sabab la'aanta ku maqan magacyadooda waa yeerin doonaa waxaana dabaqi doonaa heer hoosadkii sharciga noo qoran dabaqi doonaa walaalayaal intii timid waa mahadsantihiin dadkii yimaaday waa mahadsantihiin anugu daraadan intaan imid baa kooram buuxsamay waa iska maqnaanaya idinkana hadhihin sabtaga inoo ballan ah fadhigaan maanta kooram la'aan buu xirmay aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.